qof weyn uu soo baxaa oo bulshada soo dhex baxaa oo dadka kale u dhex jooga soo dhex baxo weeyaa qofka isagu laakiin cid gacanta intay ku soo qabatay stage-ka ku soo taagaysa ma jirto haddana adigu stage-ka isgeeyin oo golaha waynu leeyahay stage-kii waa layna arkay waa layna aqoonsanyahay hawsheena waynu halkaa ka sii wadno oo la wada dadaalo weeyaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxaan u malaynayaa halgeennadatan lagu soo aasaasay Khaatumo kuwii goboldhigga waxaa ka mid ahaa ururkii NSUM la sameeyey waxaa ka mid ahaa SSC intaba halkan baa laga maamulay markii dambena Khaatumo ayay isugu geeshubatay marka had iyo joor London waxa weeyaan hooyada kacdoonka gobollada SSC waad mahadsantihiin. waxaan ma jeclay inaan dib ugu noqdo waxyaabo badan oo laga soo hadlay taleex aad baa laga hadlay waxaan idiin sheegayaa haddaan nahay kooxda G6 oo la leeyahay maanta hawshatan guddiga u ahayd fekerka waxa asaas u ahaa nin baa wuxuu yidhi dad afuufidii waa ka ilbahay oo weynaad jirtaa cabbaan markuu diyaargaroobo oo ma soo dhawaado u baqay afuufa haddaad se afuufka ku barisid isagoo diyaar ahayn adigu baa ku hafanaya habaaska marka xilli baa jiray dadku aanay diyaar ahayn oo aanay runta diyaar ahayn kacdoonka kan markii hawsha tan la galay waxaanu dareennay shacabka SSC inuu diyaar u ahaa inuu hanto xorriyadiisa iyo taladiisa gacanta ku qabsado taas ayaa aasaas u ahay. waxa aan diray guddida 15 nina ee tagay arladii 3 magaalo bay tageen iyo tuulooyin dadku dego waxaan ogaanay dadku inay kala horeeyaan madaxdooda xagga garashada iyo biseelka siyaasadeedba. anigu caawa waxaan isu taagay halkan aan ka hadlo dadka xoogaa aan idin siiyo update waxyaabaha hadda socda siiba iyada oo cabdi shubad oo hadda ka yimid dalkii ay u suurtoobi weydeen inuu warbixin bixiyo waxyaabaha hadda ka dhacay dalka gudihiisii waxaad moodaa in mas-uuliyaddaasi aniga dusha hadda iga fuushay marka waxaan ku dheeraanayaa bal inaan xoogaa warbixin idin siiyo. dalka gudihiisa dhowaan markii la aasaasay maamulka Khaatumo oo sidaa loo socotaan maamulkaas isaga oo badhanka lagaga jiro ayaa dagaalkii kuwa wada dhacay marka xogaa kala daadashaa iyadoo nidaamkii shidibada loo aasay waxyaabihii aasaaska u ahaa ayaa lagu kala yaacay marka shirkii ugu horreeyey ee xukuumadda Khaatumo ay yeelato dhowaan buu soo dhammaaday. shirkaas waxaa isugu yimi golihii madaxtooyada iyo golihii wasaaradda waa isugu yimi waxaana lagu sameeyey sharciyadii xukumayey dowladda Khaatumo ayaa dib loo sameeyey. waxaa lagu habeeyey ciidamadu siday u shaqayn lahaayeen waxaa lagu habeeyey wasaaradu siday u wada shaqayn lahaayeen dadka qof kasta mas-uuliyaddiisu waxay ahaan lahayd ayaa lagu habeeyey. wixii hadday jireen waxyaabo ismoodsiisa oo u baahnaa in la iska dhaadhiciyana waa la iska dhaadhiciyey. wax madmadowa oo dadka ku kala dhex jiraana maanta ma jiraan horena uma jirin saasaa loo jeeday. waxaa kaloo jirta oo aan idinka warramayaa magaalada London xamar waxaa ka socda shir ay Soomaalidu isugu timid oo lagaga wada hadlayo sidii dastuurkii Soomaaliya lagu xukumi lahaa loo soo egi lahaa oo loo asaas looga dhigi lahaa ayaa hadda ka socda. shirkaas waxaynu ka qayb galay dad aynu inagu qorannay oo odayaasheenii iyo simadeennii ah ayaa ka socda. hore waxaa u dhici jirtay shirarka noocaasa marka la galo in cid kale inoo magacaabi jirtay cidda inoo fadhiisanaysa. marka midhaha ugu horreeya Khaatumo maanta leedahay waxa weeyaan in dad inaka socda oo simadeeniya oo inagu qorannay ay inoo fadhiyaan madashii Soomaalida maanta dastuurka loogu sameeyay.
خاتمه ستيت waxaa loogu talagalay dadka shacabka ee gobolada Sool iyo Sanaag ku nool inay mowqifkooda siyaasiga ah ee Soomaaliya ka leeyihiin ku muujiyaan inay ku helaan xuquuqda ay u leeyihiin khayraadka dalka inay qaybteeda ku helaan inay ku helaan caawimooyinka dawladda laga keenayo oo imanaya Soomaaliya qaybtooda inay ku helaan laakiin waxaa soo waxa ka dheer oo inoo dheeraada waxa weeyaan in codkii aynu ku lahayn Soomaaliya oo midnimadeeda ahaa in Soomaaliya midowdo inaynu inagu isku nahay asaas waxaynu nahay dadka isku haya waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya ayaynu nahay waajibka ugu weyn inagu ina saaran yahay mas'uuliyadda taariikhiga ahna waa tii aynu ka dhaxalay halgankii daraawiishta ee kumayaalka dadkeena ay ku dhintay shirka taleex lagu maamulay ee khaatimo lagu soo aasaasay sida loo abaabulay sida qof kasta geed kasta loogu tegay nin kasta geedku joogay loogu tegay sida talada dadka loo weydiiyey sida shirku u dhacay marka la eego waxa ay indhaha u furay shacabkii Soomaaliyeed ee la afduubi jiray la jujuubi jiray wax aan rabin dusha looga saari jiray maanta qof kasta wuxuu doonayaa inuu ina ka qaato formuladii aynu ku sameynay shirweynaha ka qaatumo oo ay qaatumo oo kale ka sameystaan dhulkooda baa dad badan maanta ay rajeynayaan waxa jirta marmaba dadku waxay yiraahdaan waradaynu inagu maynu horta gobolladeena hagaajisano oo iska dhaafno siyaasadaha kan guud dowladaha ka socdo gudaheena ma ka shaqaysano waa jirta taas waa habboon tahay laakiin waxaan ii sheegay nin baa jiray carabta suugaanteeda ama mashcab loola jiray cuntada aad u jeclaa ayaa niman waaweyn buu wax la cunay markaasuu iska ooyey مثلا مشعر waxaa loo yeeshay bariiska ayaa kulul hadda hadduu kulul yahay maad iska daysi taasoo weyna deeyay marka siyaasadda Soomaaliya waa qadiban tahay waa kulushahay waa qoobin tahay waa iska fiican tahay inuu faraha kala baxno laakiin dawladda deeyay mara dawladda deeyay waxa weeyaan xeelad markay dhamaato un baa lagu deeyay waxaan jeclahay cadkeena inaynu ka soo qaadano Soomaaliya Soomaalidu Soomaalidu wax isugu tahay waxba isugu ma aha si kale haddii Soomaalidu wadto jaarnimo ma jirto haddii Soomaalidu wadto tolnimo ma jirto haddii Soomaalidu wadtona waxay ahaanayna sidii ahaan jiray qarniga 19 dad qabaa'il oo meesha ku nool way ahaanayna waxaan nimanka soo kordhay gabdhaha soo kordhay in dalkii baatrool yeeshay aad iyo aad loo maaragtay xilliga kan loo hurgureeyo sida daraaddeed khaatumo iyo gobolada kale Soomaalida iyo dadka Soomaalida waxaan ugu baaqayaa in Soomaalinimada iyo qaranimada Soomaalida dib loo soo celiyo oo la xoojiyo oo Soomaalida ay fuliyaato oo ay soo celiso sharaftii iyo qiimaha haysto annagu haddaan khaatumo state nahay yaa wax noo ah yaa noo dhow yaa naga fog ama kuwa istaagay waxaanu niri gobolkaas aan nahay dadkaas aan nahay waxaanu xuduudahaas aan leenahay ninkii la aqoonsado wax noo ah ninkii aan la aqoonsan tolno maaha jaarna maaha kii la aqoonsada qaanu haddii sheegaya Soomaalidu markay maaha markay sameynayso ay cadaalad darro ku muujiso dadku waxay loola jiray waxa haddii lagu kaco rabbina aqbalo waa dunuuda xoogaa baan ka bedelayaa caawa anigoo qadarinaya hawsha dumarka ay qaybta ay ka qaateen oo waxaan leeyahay duulkii dad u kaco daayina aqbalo waa dunuuda marka gabdhuhu lafdhabar bay ka yihiin halkan ka dhacay aad iyo aad baan ugu soo dhaweynayaa caawa waxay noo joogto wasiir-ku-xigeenkii haweenka arrimaha bulshada waxay ka mid tahay hogaamiyeyaasha dalka waxaan arkaa gabdho fara badan hogaamiyeyaala
وبالشدة هجامية لندن وهكا يوم غموضة وحنا كذا هدي إلا فهموا هدان دمركم إنه هرشعون وإنه بربشعون إنه هو إنه هجاجي عندي شيء يا أبو سعيد يا هذا الكيكة dadku hawlaha waa kala leeyihiin hawlaha waa kala leeyihiin dadka gudihiisa dadka jooga xabad bay u bareereen waa dagaalamayaan waxbay dhisayaan naftoodu bay hurayaan xoolahoodu bay hurayaan waxaan xasuusinayaa hadal aan ku soo dhammaynayo islaanta isla wasaare ka ahaan jirtay Israa'iil oo loo jeedo Golda Meir maray ka hadlaysay qolba joogta Yahuuda oo joogta Mareykanka waxay tiri أنا بدأ من هذا الصعيد قان كإلى متقاربون أنا كريم لا تشتغل فكر دون متقاربين لكن أنا نقول شنو تركين الدم بالشوبي في الشتاء هذا قاعد يفهم أنا هدي قول شو حكون الشتاء واحد يدوق قبطان لكن ثلاثة دبلي ثلاثة واحد يدخل بلاه شو ياك تشان هي مركا إسرائيل وحيدلها بون إن هالجنتان أو دجالكان ياك تشان هي أمام نقول تشان هي لكن إن الجولستان هناك ينفعل التواي يروح أود دقالة ويهيستان بس أود دقالة هو ذكر قربه شوكة وحاي بتيان شبكة بتيان مولي وحنا يكون كورينيا يدوك أول بدلالي واحد سبتمبر مركا قاعد ورقم متشيل وكانوا وذكر تشوش جريء أو بينهورا واحد سلام مرة قال كفرادات سكبر دعاء أو سينات ولا طبيعي أو دعاء أو لو بهاي أنا قبضه واحد سلام عدو إنه أو عبد بنبونية أو عبد بنبونية وحنا يكبر يا إلى يروح يابها أيضا نقول تاجي ويذكر حوالها كشقينية دعاء بكيه واحد عيا وحية خدمنا ولا صحة خلط عين كاس أودع مكشلو وحنا يكون بقولنا إذا كان يتشبه هذا ذات شيء عهد إنه كل بير يعني أو كسر عشان خاتمه ويوقف كالأمان لما جاي أو وقف وحنا قلتوا مايو أو ضمنون قلتوا مايو جيت كبالي مارتي بدها ملاح ضرر نجح بهم بقولها ويدوس واحد يقول لي وحكسر تركان بيوباهي كذا جيت هذا من الرهين إذا ما تفوت مركز خاطون ولا ترتون يا إسكات كيس أو كيس أو تيجي خلاص كل يجي بريد توقف الدوليين تعاون موضوع وسلام عليكم كرهنا وحنسلام يا وسيد كل يجي بريد توقف الدوليين تعاون موضوع وسلام عليكم كرهنا وحنسلام يا وسيد